maxaad kala socotaa arinta weyn ee sida weyn loo hadal haye in raggii Soomaaliyeed farax lugabaasadii ay dumarka Soomaaliyeed u yaqaaneen ay u safeen dalkaasi Morocco laguna sheegay hablo markaasi afku xiga xaday hablo Soomaali hablo markaasi Moroccan ah oo midba kale ka qurux badan tahay geeya dhaaftay dadku faraha badnaa ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka imanay qurbaha ariga wadanka Mareykanka dalka UK iyo sidoo kale Canada wadamada waaweyn ayaa waxay soo baxsadeen dhankaasi Morocco oo hadda waxaad arkaysaa wiil Soomaaliyeed oo aad u da'yar oo markaasi la jaasaya gabadh Moroccan ah midba quruxda badan tahay ay markaasi dhac ku siiyeen haddii aad dalka Morocco tagto waxa kaliya ee shuruuda lagaga baahan yahay waa inaad markaasi wadato waraaqda single-nimada taasoo ku cadeynaysa inaad isu qalantaan adiga gabadhan single-na tahay oo aysan waxba ku daba jiitayn si weyn ayay baraha bulshada saacadihii ugu dambeysay loo falanqeynay gaar ahaan boga Cabdul Nadaar waxaan ku baahnay aroosyo markaasi ka dhacay dalkaasi Morocco gaar ahaan caasimadda oo ay dhigteen dad Soomaali iyo sidoo kale Moroccanka waxaad arkaysaa iyagoo calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale calanka wadankaasi Morocco lulaya hablo fara badan oo Soomaaliyeed ayaa goobtaas yimi oo waxa ku nool jaaliyad aad u fara badan dalkaasi Morocco dhaqan ahaan dadka Moroccanku marka ay arooska ciyaarayaan waa sida iska aroos uno dabada midisa u raaxaad idinka arkaya waana ajaa'ib dhaafay fadlan si aad ula socotaan wixii akhbaar ee dambe iyo faarax lugabaasto meelaha ay ku biyo shubtaan iyo sidoo kale habiyada Soomaalida iyaguna xanaaqsan halkan ayaan dib u soo gelin doonaa boga Cabdul Nadaar fadlan waxaan idin ku codsan inaad boga Cabdul Nadaar follow noo saartaan muuqaalkana si share garaysan aad iyo aad ayaad u mahadsantiin xidhnow boga Cabdul Nadaar oo kala soco wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo sidoo kale caalamka oo aad ku mahadsan tahay la socodka barnaamijyada sidoo kale wararka halkan aan soo dhigno